xiriiryaha howlaha bini'aadanimada ee Soomaaliya iyo Switzerland Mustafa Gobdoon oo dhawaan dalka dib ugu soo laabtay ayaa maanta waxa uu booqasho ku tagay wadadii 15 May oo maalmihii u dambeeyay dib u dhis lagu sameeyay. hadda waxaan taaganahay wadada Falnresa ama wadada 15 May qofka uu yaqaano wadada dhismeed oo jeedin ma gabagabay maraysaa waxaan rajaynayaa insha Allah inta dhamaan maalmaha ciid inta ka harsanay labada cisho ka harsanay insha Allah dhamaysanto la dhameeyo haddana maanta waxaan rajaynayaa insha Allah in maanta ماشي بقول عدان جوجني وحصاحب كان اللي جو مانتا مصطفى قبضون رجي هراء ورجلي ومانتا نوصل بقول دقمة مركب وحن أضوهم ومهنقة يا مامل كشغالات دقمة مركب لقسم حق نظافة يورو مركب جسكا مركب وحن إنك واحد ما دنا قرب جوجته واحد ما دسكي أصل كي رجلي هاي وعلينا حافظها على وصل نقدر نسمع حافظها دانا بالسن دقمة يقول ما قبل كرا وين قريه دبلوم ساعة وضع يعترى سيد دقمة النقطة دقمة هراء أصل كي أو دبلوم وصل نقدر والمر وين يقول قسمة دقمة مركب حرجينا يبغى الدور على كنقدر دسك دبلوم كجوجا دقمة أول شيء إن دبلوم وصل نقدر قريهنا دبلوم لسه iyadoo sidoo kale uu booqasho ku tagay xarunta degmada Wardhiigley ee magaalada Muqdisho waxaana uu warbaahinta kula hadlay isla gudaha xarunta degmada Wardhiigley bismillaah alxamdulillaah rabbil caalamiin marka hore ma santiin halkan waa degmada warta nabadda gaar ahaan qaybta tababarka aan ugu talagalnay haweenka gaar ahaan waxay gaarayaan 25 haween oo ah qaybta harqaanka muddo bil ay socotaa waad u jeedin xaqiiqdii meeshii maanta xamarayaan iyo maalintii bilaabayn inay isku mid aheen waana sharaf waxaan rajayn doonaa insha Allah inay uun bish soo socota inay dhamaato inta insha Allah muddo bil laba bil aan u talagalnay waana haddii loo helin raggan waxaan aad u codsanaa markay mashruucan dhamaado waa inay helaan wax bedel u ah oo harqaanka hadda maanta ay barteen in bari isla markii harqaanka kale ay helaan si uu shaqeystaan nolol maalmeedkeena soo socota insha Allah waxaan ugu dhiirigeliyay maanta in halkaan nimaadno aan ku mahadnaqno adiga shaqaalahaaga iyo inta kula shaqeeyda wax qabadka degmada warta nabadda akis degmada Wardhiigley hadaan dadka degmada u dhashay anagana waxaan jecelnahay degmada aan ka qayb qaadano hawlaha ka socdo waxaan maanta u nimid inaan dhiirigelino hawlaha dadka qurba joogtaan degmada u dhashay waxaan leenahay imaada degmada dhiirigeliya waxnaha lagu darsado degmada madana yaasiin shaqo fiican ay u qabtay waa in lagu dhiirigeliyo qofka shaqada fiican qabtay waan u hambaleynaynaa Zakri Mahmoud Universal TV مقدشو